fadhigii gaarka ahaa ee golaha ammaanka qaramada midoobay uu ka yeeshay qadiyadda Soomaaliya ayaa noqday masrax ay si cad isaga hor yimaadeen ergada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo maamulka Israa'iil kadib hadallo si toos ah u taabanaya qarannimada, taariikhda iyo eedeymo xasuuq oo si weyn u kiciyay dareenka diblomaasiyadeed. doodan oo timid xilli dunidu la tacaalayso qalalaase bani'aadanimo iyo mid siyaasadeed ayaa daaha ka rogtay laba mowqif oo aad u kala fog. danjiraha Soomaaliya ayaa hadalkiisa ku bilaabay cambaarayn culus isaga oo muujiyay caro iyo sida uu la amakaagay hadalladii ergeyga Israa'iil. I'm shocked to listen to the outrageous comments from the Israeli representative. If we want to talk about genocide, it's Israel that's committing on our own eyes every day. waxa aan aad uga argagaxay hadallada meelka dhaca ah ee ka soo yeeray wakiilka Israa'iil. haddii aan ka hadlayna xasuuq cidda geysanaysa waa Israa'iil annagoo indhaheena ku aragna maalin kasta waxay dishay in ka badan 70,000 oo rayid ah caruur haween waayeel dhaqaatiir iyo bukaanno isbitaal ku jiray in la soo hor istaago oo naloo jeediyo khudbad ku saabsan bani'aadanimo iyo xasuuq waa aflagaada qayxan taariikhda aan leenahay waa mid qarannimo iyo midnimo ku dhisan oo aan la marin habaabin karin Soomaaliya waa hal dal hal ummad hal diin oo si wada jir ah ugu dagaalamay ka xoroobidii gumaysiga. Somalia is one country, one people, one religion that fought together for independence from the colonial. dhankeeda Israa'iil ayaa golaha u soo bandhigtay aragti ka duwan taas iyada oo ku adkaysatay in mowqifkeedu ku salaysan yahay xaqiiqo iyo sharci isla markaana uusan ahayn mid kicin ama siyaasadaysan. Israel's engagement with Somaliland has a long and consistent record. In 1960, when Somaliland emerged as an independent state, Israel was among 35 countries that formally recognized its independence. xiriirka Israa'iil iyo Somaliland wuxuu leeyahay taariikh dheer oo soo jireen ah. Israa'iil waxay ka mid ahayd 35 dal oo si rasmi ah u aqoonsaday Somaliland 1960 ka hor intii aysan la midoobin Soomaaliya. xilligaas xadgudubyadii ka dhacay waqooyi galbeed Soomaaliya waxaa hore loogu soo bandhigay golaha ammaanka. aqoonsigeenu waa mid sharci ah ku salaysan xaqiiqo jirta iyo mabda' caalami ah. tani ma aha tallaabo kicin ah ama mid ka dhan ah Soomaaliya waa tallaabo sharci oo ka tarjumaysa xaqiiqda dhabta ah ee la aqoonsaday. This document forms part of the official record of the Security Council. Soomaaliya ayaa si cad u diiday doodda Israa'iil iyadoo ku tilmaantay falalkaas faragelin iyo isku day lagu dhaawacayo midnimada qaranka. Soomaaliya lama kala qaybin karo qarannimadeena lagama gorgortami karo. Soomaaliya ayaa sidoo kale ku dooday in wixii Israa'iil ay ku salaysay taariikh ahaan ay yihiin xulashooyin isla markaana aan ka tarjumaynin waaqica dhulka iyo dalkiisa. There was no such genocide in Somalia that took place. Somalia had a civil war, and the civil war has its own effects. dagaalkii sukaye wuxuu saameeyay dhammaan ummadda mana jiri karo cid sheeganaysa xasuuq sharci ah oo aan mas'uul ka ahayn. aqoonsiga qayb ka mid ah dhulkeenna waa fal sharci darro ah waa marin habaabinta midnimada dalka waana fal ka dhan ah qaanuunka caalamiga ah iyo mabda'a qaramada midoobay. Israa'iil ayaa si joogto ah ugu adkaysatay in aqoonsigeedu yahay mid sharci ah isla markaana uusan wax dhaawac ah u geysanaynin Soomaaliya sida ay hadalka u dhigtay. aqoonsiga Somaliland ma aha mid kicin ah waa tallaabo sharci oo ku salaysan xaqiiqo iyo qaanuunka caalamiga ah. xiriirka Israa'iil iyo Somaliland wuxuu leeyahay taariikh dheer waxaana ujeedadu tahay in la taageero awoodda maamul ee dhulkaas isla markaana la abuuro fursad ay ku sii wadaan horumarinta maamulka iyo xiriirka caalamiga ah. Soomaaliya ayaa si cad uga jawaabtay mowqifkaas iyada oo ku adkaysatay midnimadeeda iyo madax bannaanida dhulkeeda. wacadahay in aqoonsiga qayb ka mid ah dhulkeena uu yahay fal sharci darro ah oo khatar ku ah midnimada, nabadda iyo xasiloonida Geeska Afrika. aqoonsiga noocan oo kala ah waa marin habaabinta ummadda Soomaaliyeed waana in si cad loo diido. Soomaaliya waa hal dal, hal ummad, hal diin oo awood u leh inay difaacdo dhulkeeda iyo sharafta qarankeeda. doodii golaha ayaa muujisay sawir siyaasadeed oo ballaaran. Soomaaliya oo ku jirta marxalad dib u dhis iyo xasilooni raadis waxay u aragtaa midnimada dhulkeeda arrin aan laga gorgortami karin. Israa'iilna waxay u aragtaa arrinta Somaliland mid istiraatiijiyad u leh. mowqifkeenu waa mid sharci iyo mabda' ku dhisan mana aha tallaabo ka dhan ah Soomaaliya. tani waa tallaabo lagu xoojinayo xiriirka iyo horumarinta awoodda maamul ee Somaliland iyadoo la raacayo sharciga caalamiga ah.
ugu dambeyntii doodda golaha ammaanka waxay daaha ka rogtay muran qoto dheer oo ku saabsan cidda xaqa u leh inay ka hadasho bani'aadamnimada sharciga iyo cidda lala xisaabtami karo Soomaaliya waxay si cad u dirtay fariin ah in qarannimadeeda midnimadeeda iyo taariikhdeeda aan lagu gorgortami karin Soomaaliya lama kala qaybin karo qarannimadeena lagama gorgortami karo midnimada iyo madax bannaanida dalka waa hal shay oo aan la isku khilaafi karin warbixinta ayaa cadeysay sida dooddu u qoto dheer tahay iyadoo golaha ammaanka qaramada midoobay kadib markii uu marqaati ka noqday kala duwanaanshaha labada mowqif uu si buuxda u dhaleeceeyay go'aanka Israa'iil ku aqoonsatay Somaliland taas oo ah guul u soo hoyatay diblomaasiyadda Soomaaliya inkasta oo Israa'iil ay wali isku dayayso inay dhaqaajiso qadiyadan haddana hal xaqiiqo oo cad ayaa ah in midnimada madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya ay yihiin lama taabtaan intaas waxaan ku gabagabeynaynaa warbixinteennii aan ku eegnay sida ay Soomaaliya isaga difaacday damaca Israa'iil ay ku doonaysay inay ku kala qaybiso qarankeeda Abubakar Maxamed oo idin leh waqtigiina ayaad ku mahadsantihiin moogaanina inaad ku xirnaataan Tifaftir Media intaanu dib u kulmayno nabad iyo warsan